Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabada iyo daawadayla dalhaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeennii duurjoogta. Barnaamijkeenneen duurjoogta waxaynu ku soo qaadan doonaa taxane cusub. Taxanahaasi muxuu noqonayaa? Waxa weeyaan Afrikada dhexe dalka la yidhaahdo Botswana. Waxa uu leeyahay seero aad u ballaaran oo loo yaqaan Kalahari. Waxa mara webi aad u dheer oo weliba u yahay dhererkiisu ilaa 95 mayl. fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan. Subscribe garayso guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha yaga. Dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka. Sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaadhaan. Fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso, qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo. Inta haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay. Dalkan Botswana ee ku yaala Afrikada dhexe waa dalweyne ballaaran. Waxa ku yaala lama degaanka ugu weyn Afrikada dhexe. balse waa dhul dabiici ah oo bilic wanaagsan, aadna u qurxoon. Ma jirto meel lagu matalo oo adduunyada ku taala. Waxay leedahay dhul buureed aad u baaxad weyn, nolol wanaagsan iyo barwaaqana leh. Dhulkan Botswana waa dhulka ugu ballaaran ee ay ku nooshahay duurjoogtu. Waxay leedahay geedo midabaynaya iyo weliba dabeecad waxan oo aad u qurux badan. Halkani waa seeraha weyn ee Kalahari. Waxa ku yaala Okavango Delta. Waxaana ku nool dhulkan cajiibka ah duurjoog kala duwan. Dhulkan Kalahari ee ku yaala Botswana waa dhul helo roobka xilliyada xagaaga. Waxaana suurtagal ah in marmar kalena ay rooban tahay. Waana sababta ay ugu nooshahay duurjoogtu dhulkan. Waxay ku nooshahay hareeraha Okavango Delta.
Okavango Delta waa meel run ahaantii dabiici ah, mar walba biyo fadhiisin iyo barwaaqo leh. Biyahan Kalahari fadhiya waxay ka yimaadaan Okavango, webiga loo yaqaano. Waxaanu u jiraa Kalahari 995 mayl. Waxaanu ka yimaadaa webigani buuraha dhaadheer ee dalkaasu leeyahay. Wuxuu maraa dhul baaxad leh oo qofku jeclaysanayo. Nolosha duurjoog badan ayaa goobtani ku xidhan, iyo weliba xayawaano kale oo ku nool goobtaasi. Ugaarsadaha waa dhul u wanaagsan maadaama uu dhulku ballaaran yahay, mar kastana wuxuu ka heli karaa fursad uu ku ugaarsado. Waa bishii 6aad, waa xilliga ay ugu biyo badan tahay ee barwaaqada biyuhu meel kasta ay ceegaagaan. Maroodiga Afrika ayay goobtani tahay meesha ugu badan ee uu ku nool yahay. Cuntada iyo daaqoogu wuxuu ku xidhan yahay goobtan aad u ballaaran, waana wax ku filan. Maroodigan culayskiisa waxa lagu qiyaasaa waa 5 tan. Waxa uu cunaa maalintii dhir kala duwan. Waxa sidoo kale cajiiba geedaha halkaasi ku yaala oo noocyo badan leh. Maroodigu wuxuu u nool yahay qoysas, kuwaasi oo weliba iyaguna goobo kale ku kala nool. Maalin kasta wuxuu maroodigu qaataa ilaa 500 oo pound cunto gaadhaysa. Kuwani waa 2 maroodi. Waxay ka mid yihiin qoys, balse way ka yimaadeen qoyskoodii. Keligood ayay biyo soo doonteen, waxaanay ugu talagaleen in ay keligood safri karaan ama socon karaan amaba noolaan karaan. Maroodiga weyni waxa uu tababarayaa maroodigan yar si uu noloshiisa ugu filnaado wixii hadda ka dambeeya. Wuxuu siinayaa khibrad iyo weliba waayo aragnimo. Midkan weyni wuxuu ka yar u dhigayaa casharo lama ilaawaan ah, kuwaasi oo uu doonayo inuu berritoole isna sameeyo.
Maroodiga weyni geedaha waaweyn ayuu u luxayaa, waxaanu uga soo daadinayaa dhaameel si uu isaguna berri toole intuu sidaas oo kale u ruxdo uu uga soo daadsado dhaameelka iyo cuntadiisa. Tababarkan u socda maroodigan yar waxa uu doonayaa inay noloshiisa kaabto. Waa xilliyada la tababaro maroodiyadu markay da'dani kale yihiin. Dhirtan waa dhir aad u waaweyn, caleemuhuna way ka daateen. Sidoo kale geedaha qaar dhulka ayay yaallaan. Dhirtan badankeeda waxa lagu sababeeyaa sababo jirridda kaga dhaca, taasi oo jilcinaya jirridda kadibna ay dhiciddiisu fududaanayso. Geedkan sidoo kale waxaa aad u jecel shimbiraha, maxaa yeelay shimbiruhu geedkan oo kale markay jirriddiisu jilicsan tahay waa ay ku noolaan karaan oo waxay ku qodayaan afkooda ay ku qodanayaan. Fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan. Subscribe garayso, guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino, una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinahayaga. Dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka. Sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaadhaan. Fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso, qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo. Intaa haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay. Waa tahay daawadayaal, waa qaybteennii koowaad. Intaasaynu kaga tegaynaa. La soco qaybaha dambe iyo barnaamijkeena.